ninkaana ka jabay sankii iyo waxaa wax ka soo gaaray laftaan ka jabtay sankii dhan waa burburay waa jabay gacanta waxaa ka soo gaaray iyo lugta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرتي أنا وحر ملك السجوبتان نقرأ سعطان شكر شرف official channel أياد نقرأ سعطان على أبو أتقدر وطان برتان يوتيوب موقع كلا دوان يوربحنا نسليه كرنا غيرتي أنا وحر وايكه بدونان فلنا هدي أي تامر كيكو رسالة نصوب وقته حنفع عصرنا سبسكرايب لنا نوفع ست أصحابتنا اللي بدأت وقتها وربحين تروح نكو إيجينا آمنة فيصل oo gabar da'deeda lagu qiyaasay 15 ilaa 20 jir isla markaana hay'ad adeegto ama reer u kaalmeynaysay degmada waa beri ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ayay ka dhacday qisadan xalay habeennimadii xalay ay dadka deegaanku waxa ay ka war heleen Aamina oo damacsan inay dabaqa iska soo tuurto dad badan oo dariska ah iyo asxaabta ayaa ku soo xoomay Aamina waxa la isku dayay in laga badbaadiyo inay dabaqa iska soo tuurto balse Aamino arrintaasi dhagjalaq meenan u siinin oo teedii ayaa u cadeed lama garan karo sababta ay ku damacday Aamina Faysal in ay dabaqaasi iska soo tuurto Aamina ayaa marka dadka isku dayay inay badbaadiyaan waxa ay wateen sali iyo waxyaabo kale oo isleeyihiin dhaawaca isla markaana qofka dabaqa intaas leeg iska soo tuur waa u badbaadin karaa dabaqa ayaa ahaa mid dhirkiisu aad u dheer isla markaana ka kooban 3 dabaq ama 3 biyaano sidaad u taqaanaan Aamina runtii dhaawacyo ayaa soo gaaray inkastoo ay xaaladeedu imika lagu dabiibayo mid kamid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho mid kamid ah ehelkeeda oo la yiraahdo Siidow oo u waramay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in ay soo gaareen dhaawacyada halka ay ka soo gaareen ayuu ku sheegay inuu sanka burbur soo gaaray iyo wajiga iyo gacmaha iyo meelo kale Siidow oo u waramay mid kamid ah warbaahinta Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in Aamina ayna hadal badan karin isla markaana ayna ka warami karin waxa ku dhacay iyo waxa ku sababay balse waxa uu sheegay inay roon tahay meerkeeduna fiican yahay tamaam tahay haatana aysan warami karin Siidow oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay wixii waraw dheeriyahay arrinta ka soo baxa dhaawaca Aamina iyo sababaha dabaqa iskaga soo tuurtay oo dadka deegaanka amaba ka agdhow ay ku sheegeen siyaabo ay ka mid yihiin in jacayl dartii ee dabaqaasi iskaga soo tuurtay halka qaar kalena ay leeyihiin sababo kale oo duruufo la xiriir ayaa halkaas iskaga soo tuurtay ayaa aad la isku dhaxmarayaa أباي ننال بليس وكبرينا ما يعينه شجعته أباي كل هذول ننال وكبرينا لا بدي أباي بليس ننال ولا ترى يستورنا أباي ننال الجودة صارت جملة هذا الرسالة. runtii dadka isku dayay inay badbaadiyaan ayaa ku guul dareystay kadib markay Aamina dabaqaasi iska soo tuurtay degmada waa beri sidoo kale uun dhowr toddobaadii ka hor ayaa wiil ku lahaa halkaasi goob ganacsi goobtiisii ganacsi hoosta ka soo xirtay sida xogta ugu dambeysay ay sheegaysay wiilkaasi ayaa damacsanaa inuu halkaasi isku dilo halka warbixintaasina ay baaritaankeedu aan wali soo dhamaanin galka baarista ee wiilka ayaa waxaa la sheegayaa inuu asiga qodiisa isdilay arrimo la xiriira sababo nafsaani iyo problemyo uu tabanayay dhinaca kale dhibaatada isku geystaan dadka dhalinyarada ah ee isla markaana naftooda u geysta sida inay isdilaan amaba ay nafta isdhaafiyaan ayaa Muqdisho ku soo badanaya degmadaasi waa beri ayaa wiilkaasi qisadaasi aad loo xasuustaa dadku isweydiinayaan sababaha uu qofka ugu fikiri karo inuu naftiisa isdhaafiyo ay tahay xaalad aad u adag inkastoo diiniyan ay tahay wax dambi ah in qofka naftiisa uu gacantiisa ku dilo amaba sabab uu u noqdo arrintan ayaa lagu tilmaami karaa inay tahay caqabado soo wajaha qofkaasi ee xagga caafimaad ee mentalka maskaxda runtii arrintan waxaanu
dabaqa ayaa ahaa mid dherarkiisu aada u dheer islamarkaana ka kooban 3 dabaq amaba 3 biyaano sidaad u taqaanaan. aamina runtii dhaawacyo ayaa soo gaaray inkastoo ay xaaladeedu imika lagu dabiibayo mid kamid a isbitaalada ku yaala mid kamid a ehelkeeda oo la yiraahdo Siidow oo u waramay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in ay soo gaareen dhaawacyada halka ay ka soo gaareen ayuu ku sheegay inuu sanka burbur soo gaaray iyo wajiga iyo gacmaha iyo meelo kale iska soo tuurtay. Siidow macalin Siidow oo kamid ah ehelka Aamina ayaa afafka hore ee isbitaalka Digfeer kula hadlay 5 Somali TV. Aamina Faysal Ismaaciil oo ay xali isu soo tuurtay dabaq. hadda gabadhi xali waan soo qaadnay isbitaalan geenay ilaa hadda isbitaalkiyaan la dabiibaynaa xaaladeeda caafimaad aad ay u wanaagsan tahay. sankaana ka jabay sankii iyo waxaa wax ka soo gaaray laftaan ka jabtay sanki dhan waa burburay waa jabay gacanta waxaa ka soo gaaray iyo lugta sideeda kale gabadha miir way bad qabtaa miirkeeda waa tamaam nadiif waaye wixii oo baaritaan dheeri ah sababta ay dabaqaas isu soo tuurtay baaritaankeeda dhaqaatiirta iyo waxaa cadeynaya anagoo ehelkanahay wixii oo ka soo baxo oo iyada markay soo naaxdo aan wareysi aan ka helno iyo ehelka aan dibaal idin la wadaagi doonaa qolaha baaritaankan u dirnay. gabadha xali qolka waxaa la geliyay emergency-ga markaan aan isku daynay inaan wareysan hadalkii waan ka waanay markay soo naaxdo oo caafimaadkeeda tamaam noqdo markaasan wareysi buuxi ka qaado doona ehelkeedana waa la ag joognaa. annaga ma dhihi karno oo qof oo jeceela isu soo tuurtay taas kuma cadeyn karno. gabadhii dhibaato noocaasa loo geystayna ma dhihi karno laakiin waxaa hubaal gabadhii inay isu soo tuurtay oo dabaqii isu soo tuurtay oo caafimaadkeeda ilaa hadda aan la tacaalayno oo dhibkaas uu jiro oo maya iyada is soo tuurtay laakiin qofka problem jir case oo isku soo tuuro case-kaas ilaa aan ka ogaanin la wadaagi karno laamaha amnigan ka warsugeynaa baraha bulshada la wadaagi karno. walow ay xogta iyo wararku ay dadku deegaanka bixinayaan ay u badan tahay in aamina dabaq iska soo tuurideeda ay la xiriirta dhanka jacaylka inkastoo aanan lahayn warar cadcad balse ila ku dhow waxa ay sheegayaan inay tahay arrimo jacayl. arrimahan ayaa alaaba salka waxa ay ku hayaan dadiyooga daawada aflaanta iyo filimada hindida oo alaaba ku sameeya musalsalada iyo filimada ay ku qotonto qisadaas. balse dadka qaar kuma fikiraan qisadaas ayay koobi gareeyaan amaba ay matalaan iyagoo naftooda si run ah isku dhaafiya taasi oo caqabad weyn oo isla markaana dadka markaasi matalaya ay naftoodu run ay isu dhaafi karayaan. waa tahay fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato kanaalkeena waxaanu kaa codsanaynaa inaad la wadaagtid asxaabtaada. anigoo Shukri Xasan ayaa idinla socodsiinaya. haddii aad ka heshay warbixinteena la wadaaga asxaabta kuna soo dhawow kanaalka waad ku mahadsan tahay booqashadaada mar kale.